ka imaaday gobolka Gaday waxaan ka soo baxay Addis Ababa habeen mugdian ka soo baxay 3 saac habeenimo waxaan imaaday meel Itoobiya xadka Itoobiya Gondar halkaas ayaan habeen la joogay 4 habeen kadib xadka Itoobiya iyo Suudaan ay soo lugayay 9 saacadood waxaan soo galay Suudaan 9 saac habeenimo marka Suudaan markii ugu horeysay ee soo galo waxaan la kulmay dhibaatadii koobaad ee safarkayga waxaan ahayd baskii koobaad ee fuulo ee ila gadoon marka safarkii koobaad ee aan arko wuxuu igala gadoomay Suudaan baskii koobaad safarkii Ilaahay ugu badbaadiyay gadoonkii baskii 37 qof aan ahayn cid naga dhimatayna ma jirin waan ka soo baxnay Suudaan baa soo dhex soconay markii Suudaan aan ka soo baxnay waxaan soo gudubnay Liibiya Suudaan inta waxa u dhaxaysa saxare aad u weyn saxaraas aan ku soo jiray 4 bari 4 bari waxaan oonayo gaajeexan waan ka badbaaday meesha ay dadka qaarkood ku dhimanayaan kolay niyo aad sabab badan baa jira marka maadaama maxaan ku dhahay oo jirin wax shaqo dadkii niga horeeyay ay shaqo la'aan yihiin saas darteed baan u soo baxay may lama soconin waayo aniga reerkana markaan ka soo baxay ama xaafadana aan ka soo baxay habeen madow ayaan ka soo baxay ima ogeyn meel aan u baxayo waan soo baxay kabacdi markaan istaabiye imaaday baa iyo hadalkaana isku kana horeysay dhibaatooyin jiraan because saaba naloo jirdilay waaba nala dilay jirdilkaas ayaan lagu sameynayay waa Liibiyaan safgal ayaana laygu dilay wax kale maaha marka safgal la ilaahay ayaan gali waayay kadibna saas ayaa laygu dilay may dadka dhan ba garaacayeen laakiin si aanu jirdilkii ay igu soo baxay